Aragsan Media. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar gambaleel kafuro waad mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الغالية أهمل الباجوتان وإذا سلامية دل إيديبه وولاشين أركسن ميديا فضلا هذا النوع سبتاي سكراب لايك شير كومنتي نقدس أقيارتا ما أنت وحنا كهذا ربنا فيديو ير إن نلدابتين ربنا كبعد يفاهمني نجسين هنا سيدنا لطاي ما أنت جينا الكيجي ورالكي أبادر أقعصو ترحماني واد كسيسين أبشرنا ما أنت ما أقجرو ونجا مقيم هاي سيدات أركيسان نلا سعدا saddexdii nin ee kufsaday Caasho Ilyas Aadan oo ahayd gabar 12 jir ahayd oo ku nooleed magaalada Gaalkacyo xirilaaliyaha guud ayaa sheegay in xukunka la fulin doono 11 bisha 2020 marka ay saacadu tahay 8 subaxnimo goobta laga fulin doonana ay tahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. السلام عليكم أصحابتا maanta inkastoo aan ku cusbahay walaashii channelkeeda Aragsan Media marka maanta waxaan jeclaysnaa inaan ka hadalno toogashadii dilkeed ee lagu fuliyay ragii kufsaday Caasho Ilyas marka waxa waliba waxa aaminsanahay tayda ahaan hadda ka hadlo markii aragtida ka hadlo ragga gabadhaas kufsaday hadii hadda dad baa waxay ku doodayaan saddex rag ah loo mudili karo gabar kontan waliba yar marka antayda ahaan waxa aaminsanahay macnaha gabadhan haddaan la dilin raggan gabadha kufsaday birina kuwa badan yaa waxay sameyn karaan sidoo kale marka kuwaas waan saqaadasho u noqoto macnaha say faralkaas xun ay ugu joogaan toogashada lagu fuliyo waliba waqtiga la dhahay bisha 12-keeda 2020 waxaan dhihi lahaa waa la fogiyay next week in laga dhigaan iska jeclaan lahaa sababtoo way ka xumaan karaan ehelkii qaraabada dadka la shaqalkii markay maqnaan laakiin haddii laga daayo oo lagu fulinin macnaha toogashadaas wiilashaas kuwa badan sidoo kale sameyn kara Soomaaliyana goobo kala duwan magaalooyin kala duwan yaa hore ugu dhacday sidoo kale odayaal baa fariisan jiray waxba la kala qaadan jiray gaar la goyn jiray ayagoon raggii la dilin waxaan yar waxba la iska qaadan jiray gabadhiina ay tahay dhibane waliba mararka qaar laga yaabo inay u geeriyooto sida Caasho camal haday kufsadeen inay iska daamay way dileen marka kuwa badan baa sidaas sameyn lahaa marka si ugu wansaqaataan ayagana isu dhahaan kuwiiba waa la dilay adinkuna yaan la idin dilin marka haluu fulaan ilaa walaashii hodan aad maxaa ka qabtaa والله أني واحد بدن أنك فوا مفهمتي ويلي يرواي قولا ما دام قول هيك قلت وحن إلها قاضي صح وحن هذا قدمان سيد بوالا قدر معه قولس إني دمطانك كم فرح سنين من جعلين لكن وقع دمتي ما دام أيضا دمتني صغير أنخر إن أول كذا الله أقديه أيان جعلني هذا هو أقديه هذا جعلنا هي هذا جعلني هو هي لو قرب سمعها لكن ويشس ما دام دباتس إكستين وحن جعل لها إن عفس لو فيديو ما دام بيل صومالي إديهين يهدر تنصوب حيان ما دام دبي إكستين دبي مصانع قناة وهي هذا عن سيدا لو قدر ما هالها لكن دلكو أني ما أنت لو فيديو أنكح ما دام أكفر أحسن تاي مجعلين أنا قاعد أحكي هرتا رجع يعني قوتك بصورتها وهرتا دقدو ولا تنيشن متكيركم جدو وواحد كسر والبس هذا قال لك قاد ولا قاد تتكاس waxaan horta shaytaan ku xiriirin faantay shaytaankana walaa wax hore oo ka tuskarayn faantay صح marka raggan wala hadda xaal xataa nin weyn oo ku jiro oo adiga aabaha kibina oo ma way dhici kartaa in xataa la iska masbito ninka oo ku jirin ka suurtoodo laakiin bilaadana la yahay inay ka suurtoodo ilaahay wax diray oo gacantaas hadda oo ku baxo wax sida sameeyo inuu gacantaada ku baxo xataa way dhici kartaa Cabdiraxmaan hadii aan ku sheego laakiin waxyaalahan hortii waxaan ilaaha qadiray in ay dhacaan waxaan hadday dhacaan sidee u dhacaan lama dhaho laakiin waxa dhici kartaba waxaas ayag hadda ay sameeyeen hadii ay raadsadaan ma waayeen sida ila tahay horta aan ku sheego horta 2020 ku dinaa faantay ya saaxib afkaaga ama lacagtaada aamilku geynayso صح laakiin raggan waa wax ma sameeyaan faantay waa hadana xallo yani weyn oo ku jira ayaga way sheegayaan waa ninka ku bilaawaan faantay waa hadana xataa warbaacadeed gabartii inay iska dayaan ama markino
waxaan maleynaa waxay isdheen camal waan sheegay camal fashil sidaas u dileen horta sidaas way batahay laakiin dhigdad ma baqarsoomaayabo qofkii dad dilo wuu soo baxaa hadda habo hadda ninka dhax galo raggaas horta waxay u sameeyeen aan aaminsan sidaan fikradeedan ka hadlo waxa aaminsanaanay in horey rag badan ay sidaa usoo sameeyeen iska afiyey odayaal iyo odayaal dhaqameed iyo dad beele iyo waxaanu lahay soo imaaday wax yar kala qaatay iska daayay raggaan waxay dhaheen marka nanta haddaad kubsataan oo dishaan horta kow waxay u dilaan caddeyn yaala idinku helin midda labaad ay midda u fududaysteen waxay ahayd haddii berri waxaan ay dhacdo idin soo qabto reerihiina laandheeratin Soomaaliya horta waxa lagu dhintaa midda odayaal oo qabqableyaal ku joogo lacagaa siinayso laandheeraa taado dadkooda yaa lala hadlay meebaa firisan geed hoostiis wax yar baa laga hadlay waxaa leeyahay gabadhan sidaan bay ahayd waa konton 3 nin oo raga barteed looma dili karo wixii bay fududaysteen waxay isdhaheen malaha waxay idinka qaadaysa malaha haddii idin soo qabtana maalmo yaad ku jiraysaan xabsiga way fududaysteen gabadhii way ka taqluseen wayna kufseen soo ma haddii maanta la dhaho wiilashan way qaldoomeen horey kuwa badana waxaa loo soo dhahay way qaldoomeen oo la dhahay macnaha way qaldoomeen oo waa dhalinyarnima qaaday oo in adeeryaal intaan qaato ayadana allah u naxariisatay dhimatay dii kalena allah u boogo dhaye iska daaya hore loo soo dhahay kuwiina kuwan bay arkeen macnaha kuwan hadda joogana oo gabadhan san yeelay kuwii bay arkeen wax yar way fiiriyeen macnaha way fududaysteen falkay ku dhaqaaqeen soo ma kuwan maanta haddii iska sii daayo oo maxkamadda iyo dadka iska sii dayso waxaan aaminsanaanay kuwo kale oo badan berri inay sidaa oo kale samayn doonaan dad baa dhahay diiniyaan ahaan ma ogola diinta in 3 ragaa loo dilo hal gabadh waa macquul macnaha aniga taa culimada ama raskanayo culimada in marka kama hadli karto diinta dhankeeda ma dhihi karo horta 50 oo gabar ma kontra in loo dilo 3 qof oo raga aniga horta dad baa ka mid ah oo adiga kulwa waxay sameeyaan Soomaaliya marka dad baa ka hadlay taas danteed ma laakiin anu wax muhiimadda waxa waay in ay dadka kale kuwa jiilka kale oo dhalinyarta kale oo sidaas sameyn lay ay kuwan saqaataan oo lagu fuliyo dilka هذا بقولها بقرح وقولهم ليس تكون هل تكون إلهي سمر كثير هذا وأقول شيء قرحة تقولني واي كنا محيط وحن واي أو سقجاني ما يسمين يمكن رالي كيهن يسمين هل تكتمل يا عمي هو تاريخ حتى ساعة هذه أنا حسوست حدا هذه وإنس كأفي عمل يا هرتا حال وقع فكرة عم تخنا رجعنا هرتا قلت كوكنا عمقتي هدي قبرت سكدا في الهاي نفهمتي أو إن waxa waa laga xaltay mid lahayd sax waan halka xataa waqti ay goorto balana hadda hal lahayd waxa la ay dhan midana soo marin ku jiro ya kulli faqtluwa ha marka walaahi waxa kara walaahi horta waan ka soo gari waan ka soo garam jida waan way saxayna way hada marka waxa la dhahay iyo waxa la wararka laga soo bixin aan soo daawan dowladda Puntland Maxamuud Xasan aw Ismaan ayaa saxaafadda u sheegay waqtiga la fulin doono xukunkii dilka ahaa ee maxkamadaha Puntland ku xukumeen 3 nin ee kufsaday Caasho Ilyas Aadan oo ahayd gabar 12 jir ahayd oo ku nooleed magaalada Gaalkacyo ilaaliyaha guud ayaa sheegay in la fulin doono oo gabadha mar hore ahayd dilkeed hadda la soo cusboonaysiiyay inta dacwad way socotay macnaha horta mar dacwad markuu bilaabanaysa ana xukum maqlay waa 3 ma waa bargan waa 5 Allah هذا دتك كلبين أنا خذين 3 أنا عادات هذين كسب بعدين أنا هدية 3 عادات كسب بعدين يا 3 عادات كسب بعدين ما ك marka ay saacadu tahay 8 subaxnimo goobta laga fulin doonana ay tahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari falkan oo ahaa mid ay aad uga argagaxeen ummadda Soomaaliyeed ayaa dhacay 4 February 2019 kadib dacwad dheer oo sababtay in 3 darajo ee maxkamadaha Puntland inuu hamraysto bilaa waxa wada fahmaysan sax horta Boosaaso waa horta xalahaniyo anigi saa ku maqlo horta oo Boosaaso taala wala faralka ugu badan oo kufsiga Boosaaso ku dhacan Boosaaso ma dhinacan waliba Gaalkacyo wanaha ma ku yar kufsi maxaa keenay ma ku yar war ma aqaan wala naagaha ma kale naagaha may qali ka dhigeenyo ayaamaha Soomaalida waxa dibgeed u taqaan haweenkii baa waxay noqdeen gabadha waxay ku dhehaysaa ilaa 50 ka gaar wadaad lacag in diyaarada Mareykanka meelaha ay adinay mas'alooskii inta soo baawur hool aad dhigeen oo saad yeelin gursumaysa dhalinyartan hadii xayraankii ku reeyo
lacagti ma haystaan lacagti ma haystaan oo way joogeen oo iskaabuleen aan ku sheegay wax kasta jaceylka ku ilaa lacag shardi ma ahe asaga ma oo ka keensanin jaceylka sidii jaceylka inuu ka keensan macquul ma qaas jeclaatay oo hore oo daran isku la seexatay oo shardi ma in alaab loo dhigo dhowr baa soo jeclaaday waalidka markii loo yimaado muxuu haystaa laga bilaabo horta kow yuu yahay ya Soomaali waxa labada shay oo dhalinyarta hadda kala dishay waxa waaye ninka reer ku ka dhashay iyo muxuu haystaa baabuur ma leeyahay hanti ma leeyahay dollar intaas kuna dollar ma keeni karaa haddii maskiin ani camal hadda waxaas ka jeclaanay markaas aan leeyahay ana horta yaa taa reer baa ay maxaad leedahay ma haysti iska soo caalimo inaad adoo kugu dhigan tahay yaa lugleeya saacad wara yaara ku jirta camalniyo ma iska macquul tingeeda inay video sidaan ku soo gabagabeynayna ku soo afjarayna aqyaarteena qaaliga ah sidaad arkaysaan sidaan ku soo gabagabeeyna videogii aan ku gudo jirnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh reaction ku xiisa geliya challenge aad ku qasuso riwaayado ku dheer vlog aanan ka marnayn intaba waxa diyaar idin la Aragsan Media fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar gambaleel waad mahadsantihiin